Hello, assalamu alaikum. Dhammaantiin aad baan idin salaamay asxaabta Soomaaliya. Kulli mar hore isu keen dambeysay laakiin waxaan jeclaaday caawa inaan video yar aan soo duubo oo ah in sida loo sameeyo interpretationka chesska ama chest x-ray interpretation. Kulli waa iska routine qof walbo fiilka radiology ku dhex jiraana ama radiologist ahaada ama radiology technologist ahaade waxyaalaha ugu horeeya ee uu barto waxaa ka mid ah interpretationka chest x-rayga. Marka videogan waxaan jeclaaday just as a revision ama muraajic ahaan inaan ku celino dhammaantiinba chest x-rayga. So qof walba interest gareyn waad ku mahadsantahay inaad daawatid. So first of all marka ugu horeeya sawirkan aan haysano waxa weeye waa frontal x-ray weeye ama PA chest radiography. Intaadan u gudbin ama intaynan u gudbin interpretationka waxyaalaha ugu muhiimsan ee aan rabno inaynu sameyno waxa weeye inaynu ogaano informationka x-rayga iyo informationka patientku inay wada socdaan ama ay sax yihiin. So usually magaca patientka iyo age-ka iyo clinical indicationka marka hore inaad check gareyso waa muhiim. Mar labaad intaynan u iman interpretationka ama aynan gelin waxa muhiim ah sidoo kale dhowr qodob oo ugu horeeyo inaad check gareyso penetrationka filmka. So usually x-rayga markaad check gareynayso penetrationka chest x-rayga waxa lagu gartaa waxa ka mid ah in vertebral bodieska aad ka dhex arki karto wadnaha dhexdiisa ama heart shadowga. So thoracic vertebral bodieska waa inaad ka dhex arki karto heart shadowga. Haddii intaad aragto marka waxay calaamad u tahay in good penetration uu leeyahay filmku. Sidoo kale waxyaalaha aan u baahanahay inaad ogaatid ama aad sii check gareysid intaan interpretationka aanad u gelin waxa ka mid ah inaad ogaatid rotationka filmka. So patientku in wax rotation uu leeyahay cause usually haddii rotation uu jiro deetana rotationku wuxuu sameynayaa inuu khalkhal geliyo ama inuu bedelo mediastinumka. So usually if there's any rotation wuxuu sameynayaa means alignment inuu ku sameeyo mediastinumka. So usually make sure intaadan interpretationka bilaabay inaad check gareyso patientku in wax rotation aanu lahayn. So inaanu wax rotation patientku aanu lahayn maxaad ku garanaynaa? Waxaan ku garanaynaa inaynu check gareyno spinous processka iyo clavicle endisku inay masaafo isku mid u jiraan. So labada clavicle mid walba waa inay masaafo isku mid ah ama isku dhow ay u jirto spinous processka vertebrada. Taasaa calaamad u ah in wax rotation aanu jirin. Qodobka saddexaad aynu u baahannahay inaynu ogaano intaynan interpretationka aynan gelin waxa weeye Allahumma salli ala Muhammad inspiration. So qofku usually frontal x-rayga ama PA chest x-rayga marka laga qaadayo waa inaynu u sheegno inuu deep inspiration ama hawo dheer inuu jiido kadibna uu hayo. Taana waxaa lagu garan karaa marka interpretationka sameynayso inuu qofku feel inspiration sameeyay in kale inaad tiriso ribska ama feedhaha. Marka posterior ribska markaad sameynayso markaad tirinaysaan ka wada waa inay 12 ay gaadhaan. So usually xaggan uu ka bilaabmaa. Haddii kalena anterior ribska ayaad tirin kartaa oo iyaguna 6 at least 6 anterior ribs waa inaad tirin kartaa. So usually hadda inaga waxaan tirin karnaa anterior ribska aad arki kartaan tii koowaad, tii labaad, tii saddexaad, tii afaraad, tii shanaad iyo tii lixaad. So almost waa deep inspiration buu patientku inuu qaatay. Saddexdaa marka aynu dhammayno ayaynu usoo gudbaynaa interpretationka. Laakiin intaynaan interpretationka aynaan u gudbin sidoo kalena make sure in filmkaaga markerkaagu sax uu ku yahay. Sidoo kale waxaa muhiim ah intaadan interpretationka aadan gelin in sawirku dhammaystiran yahay. Waxaan ka wadaa sawirku inuu dhammaystiran yahay dhammaan shieldingka ama anatomigii loogu talagalay in la arko in aad sawirku aan wax go'itaan aanu ku sameyn. So waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah costophrenic angle-ka labada costophrenic angle iyo apiceska sambabka. So lung apiceska iyo CPA-ga ama costophrenic angle-ka sambabada waa muhiim labadaas inaanu go'in. Sababta ay muhiimka u yihiin waxa weeye xaaladaha
qaar especially tusaale ahaan costophrenic angle oo kale waa halka laga helo marka wax fluid uu ku jiro sambabka ama ha noqoto hemothorax ama dhiig meesha fadhiya marka qofku traumada uu soo galo ama qofku hadduu infection uu leeyahay sida pleural effusion oo kale iyo fluidada kale meesha ku urura marka waa muhiim costophrenic angle inaanu go'in haddii uu go'san yahayna sawirkaasi maaha sawir la turjumi karo sidoo kale lung abscessku ama xagga ugu sareysa sambabku inaanu go'nayn iyaduna waxay muhiim u tahay waa meelaha lagu arko badanaa haddii ay jirto pneumothorax especially small pneumothoraxka iyadana waxaa lagu arki karaa abscesska waayo waa xagga hawadu ay u baxda weeye oo xagga sare ay tagtaa sidoo kalena primary TB-duna site-ka ugu badan ee lagu arki karaa waxaa kamid ah lung abscesska so waa muhiim in lung abscesska iyo costophrenic angle-ku ay muuqdaan sidoo kalena waxaa muhiim ah inaan arki karno shoulder-ka ama shoulder shadowga labada garabba sidoo kalena upper abdomen-ku iyaduna waa muhiim waayo xaaladaha qaar baa iyadana laga detect garan karaa chest x-ray-ga sida pneumoperitoneum ama air haddii ay gasho peritoneum cavity-ga xaggana laga arki karaa sambabka dhinaciisan ay air fadhiisanaysaa cases kale arki doonaa sidoo kalena haddii qofku trauma uu soo galay marka diaphragmatic hernia oo kale haddii ay jirto ama traumatic diaphragmatic herniation ama rupture oo kale hadduu jiro iyadana waxaa laga arki karaa dhinaca bidix bay badan caan ku tahay so intaasi waa waxyaalaha aad u baahan tahay inaad samayso marka aad bilaabayso chest x-ray interpretationka